balaadhan oo si heersare loo soo agaasay ayaa lagu qabtay degmada Wadaamago taasi oo lagu dayactiri doono wadada isku xidha gobolada Togdheer Saraar iyo weliba Sool wajigooda hore lagu dhameyn doono inta u dhaxaysa degmada Wadaamago ilaa Arcadeeye waxaa munaasabadani ka soo qayb galay barasabka gobolka Saraar Axmed Cali Nuur maayirka magaalada Caynaba Faysal Axmed Jaamac taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Saraar mas'uuliyiin kale oo tiro badan dayactirka lagu sameyn doono wadadani ayaa wax weyn ka qaatay ururka Saaf oo kamid ah ururka wadaniyiinta Soomaaliland wuxuuna qalab fara badan gaarsiiyay dadka muruqmaalka ayagu ka shaqeyn doona wadadaasi wadadan isku xiri doonto deegaanada Togdheer Saraar iyo weliba Sool ayaa noqon doonta wado ay shaqo abuur ka heli doonaan dhalinyaro fara badan oo ku dhaqan deegaanadaasi iyadoo halkaasina lagu qaybiyay qalab fara badan oo fududeyn doona hawsha dayactirka wadadaasi hay'adan imika dariiqa dhisas NGO-gan sahan waxaan leeyahay runtii wax laga baahan dadaal fara badan sameeyo wajiis ku jira run ahaantii dadkii oo shaqeynaya iyo dariiqii inaga guuy lahaa ama biyuhu jiri lahaayeen isna laga qabanay wixii biyihii iyo wixii jiraya ama meelaha oodmeena biyuhu loogu talagalay marka hore inay ka dusaan haday oodmeena in la furaan haday ay biyuhu kala tawadada iyo waxtarkeed iyo kale oo ah ana shaqaalaha ka hawlgelaya wadada oo aad loogu baahnaa taasoo dhalinyaro baa tuban oo bilaa camal ahayd oo macnaha ka shaqeynayso iminka ka hawlgelaysa warasaabka iyo taliyaha qaybta iyo inta madaxda ah kale la socota waxaan kaloo salaamayaa NGO-dan oo timiye wadada hagaajinaysa ayaan salaamayaa anigoo aan gudoomiyaha sahan waxay sheegayaan shaqada si loogu talagalay ma aanu wadayna hadaan nahay ururka qoladina shaqadana inuu wada shaqeyno si fiican wada shaqeyno wadadan isku xiri doonto deegaanada Togdheer Saraar iyo weliba Sool ayaa noqon doonta wado ay shaqo abuur ka heli doonaan dhalinyaro fara badan oo ku dhaqan deegaanadaasi iyadoo halkaasina lagu qaybiyay qalab fara badan oo fududeyn doona hawsha dayactirka wadadaasi Maxamed Cilmi Xasan Shiine telefishinka caalamiga Home Cable TV Caynaba.